laga doonayaa degmada saddexaad ee halkan cod degmada saddexaad ee wiilashu u tartamayaan baa codka laga doonayaa qof meel kale ka yimi codka lagama rabo qof isteed kale ka yimina lagama rabo annaga codkayagu naga go'a rabitaankayaguna annagu naga go'a kaanu annagu siinayno annaga inoo taalla laakiin hala daayo habar wacashada iyo dhagax tuurka iyo qabiilka iyo waxa kan waa midabteeni iyo bidixde inaynu haddaynu Soomaali nahay aan horta food garayno waa laba wiil oo Soomaaliyeed horta Soomaalinimadu haydindeeq haddaan Soomaalinimada ka gudbo qabiilku waa lama huraan waa la taabanayaa qabiilka waa la taabanayaa qabiilku waxa weeye labadan wiil ee Soomaaliyeed ee halkan ka tartamaya ee Columbus Ohio ku tartamaya waa laba wiil oo haddaan qabiilku u soo dabo qabiilku ceema waa laba wiil oo daarood Ismaaciil maxaa u diiday wiilka sadad daarood in daaroodnimada laga saaro la yiraahdo hayaa daaroodahay diin wuxuu ka mid yahay marka dadka ugu horeeya oo u cadcad oo doorashadan hadda kooka waxyaalaha aan keenay inaan diin ku dooranno waxaa ka mid ah baahida loo qabo bulshada markii koobaad maaha dad badan baa hor loo soo saaray oo Soomaalinimo loo soo saaray maxaa ceeba oo su'aale Soomaalinimada dad baa gooni u leeyahay Soomaalida oo dhan bay ka dhaxaysaa Soomaaliya oo dhan hadday ka dhaxayso codku waa nin walba iyo choice-kiisa and this is America codku waa choice hadda haddii wiilkaas wiil fuudo ama nin xataa tamira waa la qosqos lahaa laakiin sharaf bay noo tahay laba wiil oo Soomaaliyeed tartamaan sharaf bay anaga noo tahay absolutely sharaf bay noo tahay anaga ma tahay wax qabiil ah ma jiro Soomaaliya nahay laakiin waxaa la ogaadaa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal wali waxaanu ku guda jirnaa doorashooyinka gobolka Ohio doorashooyinka xildhibaanada halkaas lagu soo doorto maanta taariikhdu waa 27 bishii February 2024 bulshaweynta gobolka Ohio ayaa aad u soo buux dhaafiyay goobta doorashooyinka bulshada qaybadeeda kala duwan ayaa taageero aad weyn u muujiyay musharax Cabdirasaaq Diini jawiga doorashadana wuxuu u dhacay sida tan waxaan rabnaa horta marka ugu horeysa baaqa halka ka diraya waxa weeye in la soo baxo oo la codeeyo codkeenu waa muhiim wax u bedeli karaa horena waynu u codeynay codkeenu hore u meel maray haddana waynu ka taaganahay markastana waxaynu nahay dadka Soomaaliyeed ee halka ka codeeya waxaynu nahay dadka kaliya ee marka qof Soomaali uu tartamayo garab taagan ee ku garab taagan dhaqaale ee ku garab taagan cod oo ku garab taagan xoog ku garab taagan oo halka u taagan inta markaan ka gudbo dadku waa dad Soomaaliyeed Soomaali baa leeyahay waxa halkan horta ku tartamaya hadda booskan aan hadda ka hadlayo laba wiil oo Soomaaliyeed labada wiil ee Soomaaliyeed waxaan rabnaa inagu iyaga isu soo sharaxay boosaska mid horena xilku hayay kan kalena xilkan doonaya isagu waxaan rabnaa markaa inaynu haddaynu Soomaali nahay aan horta food garayno waa laba wiil oo Soomaaliyeed horta Soomaalinimadu haydindeeq haddaan Soomaalinimada ka gudbo qabiilku waa lama huraan waa la taabanayaa qabiilka waa la taabanayaa qabiilku waxa weeye labadan wiil ee Soomaaliyeed ee halkan ka tartamaya ee Columbus Ohio ku tartamaya waa laba wiil oo haddaan qabiilku u soo dabo qabiilku ceema waa laba wiil oo daarood Ismaaciil maxaa u diiday wiilka sadad daarood in daaroodnimada laga saaro la yiraahdo hayaa daaroodahay oo youtuberada loo qaybiyo isagu daarood maaha meeshan dad Soomaaliyeed baa codka bixinaya daarood kaliya bixin maayo waxaan laga doonayaa codka laga doonayaa degmada saddexaad ee halkan cod degmada saddexaad ee wiilashu u tartamayaan baa codka laga doonayaa qof meel kale ka yimi codka lagama rabo qof isteed kale ka yimina lagama rabo annaga codkayagu naga go'a rabitaankayaguna annagu naga go'a kaanu annagu siinayno annaga inoo taalla laakiin hala daayo habar wacashada iyo dhagax tuurka iyo qabiilka iyo waxa kan waa midabteeni iyo bidixdeeni laba wiil oo ilmaadeera maxaa keenaya yaa daaroodahay meesha daarood kaliya cod bixin maayo shaydaanka hala iska naaro Soomaali baa codkeeda loo baahan yahay codka aan u baahanahay baa Soomaali ah وأنا السلام يا وحنا سودوينا يا قبل اللي هذا أصيل
عليكم ورحمة الله وبركاته. غير أهايو أكبر mahadsantihiin hal baan ku faraxsanahay waxaad caan ku tihiin sidii aad maaragtay Soomaalinimadu ugu weyn tahay dadkii runtii Soomaalinimada qadarin jiray oo Soomaalinimada ku dheerayda badan degan khayr Allah siiye markii koobaad maaha dad badan baa hor loo soo saaray oo Soomaalinimo loo soo saaray maxaa ceeba oo su'aal leh Soomaalinimada dad baa gooni u leeyahay Soomaalida oo dhan bay ka dhaxaysaa Soomaaliya oo dhan hadday ka dhaxayso codku waa nin walba iyo choicekiisa and this is America codku waa choice maahan qoys maahan qabiil maahan jacayl waa huu aad agrigaraysan tahay oo aad isleedahay qofkaas waa la soo saari karaa qofkaan alla ileh intaana marka dadka Soomaaliyeed codaynaya aad bay u mahadsan yihiin iyo dadka kale ee waddanka degan boqol kastaba ha ahaadaan qofkuna wuxuu ku codaynayaa dunin baxaan joogta mabda baa lagu codaynaya maahan wixii aan waddanka oo dhan in lagu codaynayo qabiilkii qabyaaladaha waxaa lagu codaynayaa waa qadiyad waa mabaadii waa qofku value uu aaminsan yahay inuu ku codayo dadkana intaasaa soo jeedinaysa oo runtii inta qadiyadana waxa garanaysa soo ay ku codaynayaan qofkii dee cudub kale ku jiro oo wariyaa hebel iyo wariyaa eedda bashiir warwaa habeen baa intaana waxaan leenahay allah yahdiik Soomaalinimadu ha shaqayso sharafta ha shaqayso intaas ay iga dardaarana ana la codeeyo alla soo baxo diini maaha inaad ugu codaynaysaa ku yahay ee waxaad ugu codaynaysaa danihiina value-giina ilmihiina iyo danihiina baa ka dhex muuqda soo baxa oo codeeya Soomaali ha noolaato thank you so much America ale bye bye barakaatu reer Columbus meel kasta aad joogtiin salaanta islaamka ku salaamay salaanka baaxid waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato gabdhihii igu horreeyay Faadimo Qaasim iyo walaashii Asiili waxaan leeyahay hadal wanaagsan ku hadasheen Soomaali asalaamtii Soomaalida Maxamed Beetro waxaan leeyahay Soomaali baa leh hadalka igu horreeyay Qaasim iyo Asiili baa laakiin anigu gabadhaas soo gabagabeynaya sida u sheegay Asiili iyo Faadimo in laba wiil oo Soomaali ah tartan iswaar meeshan qof kasta nasiibkiisa iyo guushiisa u dhaqaaqaya waxba ma kordhi karno waxna ka mid karno hadduu diin soo baxayana ma eri karno hadduu kala soo baxayana ma eri karno kii soo baxay kii kale waa laba wiil oo Soomaali ah waana tartarma America dhan laba madaxweyne tartanku maaha markaan tartamno dad wax galaayo oo tama inaan duulaan looga jeedaa hadda haddii wiilkaas wiil fudud ama nin xataa tamira waa la qosqos lahaa لكن شرف بينوتا لو يلو الصوماليين ترتمان شرف بينك نوتا أبسولوت شرف بينوتا أنا ما فهمتي واحد قبيل ده مجرى الصوماليين لكن وحاله هذا مشان وفيدن وأمريكا قفك جويس ولا ماشي راعة يس قفك ربو عضينا قفك ربو راعة قفك صحاب قبليان قدحوا ما تمجرتوا قبيل مجرو قبيل ما كان أصل قبيلة كسوتينا لكن ورانك القبيل يا فرين متهي يا حكتا عمر يا هذه تعشى إلى الرحلة ما فهمت هدول ورانك تاجر الدين يا كرعة عم فرون ديني يا وعدينا عم فرون ديني يا رعصاي عم فرون ديني تيم كان شغونا أكسنا كهية وتيم كان لا شقينا يديني وكان يدير وترتمية دجان كان ديستريكت 3 aad iyo aad baan markuu hore soo mahadcelinaynaa bacdallahi waxaan mahadcelinaynaa dadka halka shaqada ka haya waxaan rabnaa inaan u sheegno community-ga reer Columbus oo haayo dhammaan shaqo fiican bay wadaan waana guul noo soo hoyatay dhammaan oo baraarujinaynaa waxaan rabnaa inaan ku baaqno qof kasta oo codkan inuu bixiyo awood u leh inuu codeeyo ayaanu si maaragtay mug lagu dhiirigelinaynaa waxaan doonaynaa oo kaleeto dadka shaqeynaya inaysan shaqada halkan kaliya ka dhiginin ay ka shaqeeyaan meelaha community-yada isugu yimaadaan warkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa diini asalaamu allaahi calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maalin weyn maanta waa maalin weyn weeye waxaa aad u faraxsannahay doorashada iyo qabaqaabada isay u socoto waxaan maraynaa maalintii shanaad waxaana soo baxay nambar badan oo dad ah oo u codaynahaya diini waxaan rajaynaynaa kuwa badanna inay soo baxaan insha allah ilaa idinkiis
ayadoo weedarku ama maalina fiican yahay maalina wuxuu yahay laakiin nambarka dadku say u soo baxayaan ay u rabaan doorashada waa arrin aad u xiiso badan waaye say dadku u shaqaynahayaan gruubka shaqada wada iyo dadka imaanahaya oo foodgaraynahaya labaduba marka qof hadda loo mahadcelinahay ma jirto waxa waa waajib qof walba gudanaya codkaaga ayaad Ameerika iyo noloshaada waa isku xiran yihiin dad hore oo wakiil ka ahaa degmada waa jireen oo shaqadii awal loo idmada sidii la rabay aan ka soo bixinin marka waxay keentay taas in change la sameeyo qorshe kale cusub laga fikiro dad kale ay tartamaan diin wuxuu ka mid yahay marka dadka ugu horeeya oo u cadcad oo doorashadan hadda kowka waxyaalaha aan keenay inaan diin ku dooranno waxaa ka mid ah baahida loo qabo bulshada oo gun violence markay noqoto arrimaha guryaha markay noqoto arrimaha carruurta markay noqoto baahi badan oo community u qabto waxay timid keentay in diini maanta loo soo baxo oo loo codeeyo marka waxaan rajaynayaa shan beri baa hadda codayntu socotaa waxayna socon doontaa 3 bilood oo kale iyo weliba ka sii badan waxaan rajaynayaa in dadku ay soo baxaan codeeyaan shaqadaas ay qabsadaan awooddoodii iyo ay soo ceshadaan iyo wixii maaragtay ay ku xisaabtamahayaanba marka waxaan leeyahay guulaysta aad baan ugu rajo weynaa inaad guulaysanaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibkay baan leeyahay haddana balaad una xogtooda بسم الله الحمد لله وكفى الله يسلم يا waxaan leenahay waxaan halkaan u nimid inaan u codayno diini inta codaysay iyo dadka shaqaynaya waa u mahadcelinaynaa waxaa kaloo jirta Columbus waxay ka mid tahay meelaha ugu dadka badan Soomaalida degan markii la yiraahdo Mareykan oo dhan dadku marka sida ay u soo baxeen iyo sida ay u codaynayaan iyo sida loo degan yahay wax isku dhow maahan marka dadka tirada badan oo dhawaad degan yihiin waxa la maleynaya caruurta u badan yihiin oo soo qaangaadka ku yar reer Columbus marka waxa la cid kasta oo qaangaara oo codayn karta hatta ma codayso waxaanu ka midnahay tiimka diini loo codeeyo la soo saaro dadka qof walba oo codkiisa bixin kara oo qaangaara ha yimaado meesha dad tiro badan baa magaalada degan reer Columbus reer 614 qof walba qaangaara inuu meesha codeeyna waa salaamaya